والسلام نمعة عبدي بخاري سالم عليكم والسلام والال ويا سعيد نور ويا عيدروس نور سيمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماندام بنت مهدي إبراهيم عليكم السلام والال أحمد نمعة عبدي الله يعزك محمد كيسي بقرتي عليكم السلام والال سعاد قالي حسين قولي رضوان أدقنا تك الصاحب إلهي نسود هذيو ويا هاي سلاسرة شرقرية وتطفر من وتطفر وي محمد داغ سعيد عليكم السلام ورحمة الله صاحبتي وحصل يبتعدوا حلقا وشواء وحصل يبتعدوا حلقا وشواء شرقرية حقشة وركاقي وهالشرح نصوص وحصل يبتعدوا حلقا وشواء وحصلي أكادو أصل آمين إن شاء الله إلى هاي لهذا قلت إلى هاي لهذا يا ولاد عشقوا مشاكل حيابيو حسين كوي حي حق سبي مركزي ها نفطي ذنب وحرقوا أو حرقوا سو دhowaada walaalayaal dhamaantiinba assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu meelaad joogtaanba walaal sii sheer gareeya waa dood furan 30 daqiiqo ayaynu ku jirnaa baraha bulshada maalmahan waxa ku badanaya sheegaan maxaan qulaaye xidig waxaynan shaqo ku lahayn baa ku badanaya taynan wax ka idhaabaan doonaya iyo anigu waxaan ka aaminsanahay waxa iyaduna ku badanaya dad badan oo mutaqaana مدرس سومالنا ربا إني كلا جوجويا تاو حبكة سي والعس نكي نبى وحل إلي دقن بوها وحنو درنا أهل كيسي يتلكي سو درنا بالي نكاسي دقن بوها وبيه هو يدي بوجسي درنا دبدنا واحد عضي وحيري ما أنت وان تلينا يا بوري والكاسة وحلو يقول ما حد قلت تلينا يسا waxaan ku talinayaa inay hooyada iyo aabaha isfuraan ayaan ku talinayaa buuri hooyada iyo aabaha inay isfuraan ya waa kaayaga baa la doqonkii
ما قرأت الليلي وارتقوكي واكاسي بالإيقا وحي نعسك هاي على حراره تولي هورتا كاسي يساقو ما قرصدو waxaa ka sii daran kan Mustafa Martiin Layla Somaliland sheeganaya waxa xaraara ku soo shubsanaya public dhanbu la soo fadhiistay United Somaliland baan ka bilaabaya qurbaha anna madaxweynaha baana waruuxu sheeko xuma waruuxu arin xuma waruuxu doqonsana waliye ka soo kala maaray waxa nagu cusub maaha waxa inta badan jira aakhir sabaan baynu ku jirnaa walaalayaal aakhir sabaan ayaynu ku jirnaa aakhir sabaan hadaynu ku jirnana waxa la dhageystaa dadkii malaa'iktu ka rawaxday baa la dhageystaa maxaan ku dhaayay nolosha ka dhacay kii khamriga ahaaba life soo galay kii khamriga cabay kii xashiishada cabay kii mataqaana diinta ka baxay wax Allah wixii oo dhan baa la dhageysanaya ninka Mustafa Martiin waxaynu wax ku cusub maaha waxaynu horaba uga baranay laakiin waxa quruxda badan waxna uu bartaa la yiri jaamacadna uu yara dhigtay inuu aqligiisa ku shaqeeyo maaha inan yar oo qeyrkiya wuxuu ku soo shubay inuu la soo fadhiisto nacaybka dadkooda nacaybka dalkooda nacaybka ummadooda ma garatay Somaliland lagama yaabo waxay filayaan inay dhacdo madaxweynihii hore Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraanyi ayaa waxa laga hayay markuu khudbadiisii khudbad kamida bay ahayd Somaliland marxalado badan bay soo martay oo fulaygu shakiyay يعني مرحلة آدو قرار رشق سحاق بايستلي ودقالكي سكيا دعاي كيف قشتار دعاي اللهم أسنا مومركا الأساسية اللحلة دنتي دنكي سيرايا نكي يريبوها أسنا مواد لحلة واد فانتانو ملاينا إياه مركا ما أنت إنما يرى بونبونين إياه بعيدة إيو سعد يونس لوضع بيله ولا لها gacantu ka dhacday inamada yaree buunbuuninaya habar jeclay iyo habar walba israacday inamada yaree buunbuuninaya dawlad baanu dhisayna adeer waa wax idinku maaha waa waxad hore u taqaaneen waana wax la idinku yaqaanay Somaliland dhayalka waxba ku noqon mayso arinta jeeganta ma soo noqonayo arinta jeeganta jeegan wax la yiraahdo ma jirto ilaahayow jeegan ha naga dhigin jeegan anugu ku doorsan maayo garxajis ku doorsan maayo jeegan ku doorsan maayo walaalahayga garxajis indhahayga cududayda xoogayga muruqayga dhaqaalahayga sharaftayda aan ku faano ku doorsan maayo jeegan ku doorsan maayo reeshaq saxaaqna jeegan ku doorsan maayo aniga habar jeclay iguma filna habar awalna iguma filna markay noqoto reer isaaq baa igu filan oo dhameystiran ayaa igu filan Allah ay barakeeyo caydoodu waa caydayda sharaftoodu waa sharaftayda dhibtoodu waa dhibtayda nin kamida in cidida uska geed soo gaadhana ma ogoli taasi waa taasaan ka leeyahay markay Somaliland noqotana isaaqiguma filno oo Somaliland oo dhan oo mida oo cadaalad iyo sinaan iyo walaaltinimo iyo wax wada lahaansho ka dhaxeeya igu filan waad faanteen baan malaynayaa haddaba mid baan idin sheegayaa xukuumad waloo Somaliland oo timaada xukuumad wal oo Somaliland oo timaada waxa la isku mashquuliyaa shacabka Somaliland qayb kamida iyo xukuumadda cusub baa la isku mashquuliyaa xukuumaddii hore waxay ka fadhiisan weyday beela kamida beelaha Somaliland waa xukuumad qabiiliye baa la lahaa hadday ceel qodayso hadday wada sameynayso hadday horumar soo kordhinayso waa la hortaagnaa
سلطان باهلي عاقل باهلي شيخ باهلي شريف باهلي دولة نمدا هرت من نقانا ayaan daradayna haysata hadaba mid baan idin sheegaya walaalayaal midaan idin sheegaya waxa weeye war maxaa keena xukuumad kasta oo Soomaaliland loo sameeyo in loo magac sameeyo oo ummadda lagu kala qaybiyo oo looga dhigo gaar looga dhiga waxa rabaa inaanad hana qaadin waxa la rabaa inaanad ictiraafilin waxa la rabaa inaanad tahriibka abaaraha sixir bararka iyo dhibaatada aanad ka bixin baa la rabaa oo adiga iyo madaxtooyada la isku ka mashquuliyo madaxweynuhu waa ayo waa reerka waa Sacad Muuse madaxweynuhu waa ayo waa madaxweyne ku-xigeenku waa ayo waa reerka taliyuhu waa ayo maxaa ka galay adiga ma su'aal baan ku weydiinaya madaxweyne ma kugu filan siyaasi ma kugu filan caaqil ma kugu filan adiga waajibka ku saaran muxuu yahay adiga waajibka ku saaran waxa weeye koow inaad caafimaad hesho inaad amni hesho inaad nolol hesho inaad biyo hesho inaad leer hesho inaad hesho wadooyin inaad hesho waxbarasho inaad hesho horumar inaad ictiraaf hesho inaad adduunka ka mid noqoto adiga intaas ku deeqda noloshaada dhan maxaa ku soo xidhay madaxweynuhu waa reehbel iyo wasiirkaasi waa reehbel iyo kana reehbel maxaa ku soo xidhay isweydii waxa dhimanaya waxa tahriibaya hooyada goblamaysa hooyada ooyeysa hooyada dhaxanto hayso ubadka darayeysan ubadka bila waxbarashada ubadka bila biyaha ubadka bila leerka ubadka bila biyaha waxa adiga weeyaan waa shacab weey maxaa ka galay ninka madaxweynaha markuu madaxweyne noqdo madaxweyne Soomaaliland uu noqonayo uu ka baxaya wixii madaxweyne ku-xigeenku sidaa ka daalay caaqilku sidaa ka daalay nin waliba dantiisa ayuu wataa adiga dantaadii meeday war adiga dantaadii ma waxay noqotay inaad tiraahdo caaqil boqor buur madooba boqorkayga ah iyo sultaan xasan baa sultaankayga ah iyo sultaankii habaryooni sultaan maxamed sultaan cabdiqaadir iyo sultaankii sare ee shakhsa baad la fadhidaa maqaaxiyaha adigoo gaajoonayo koobiyahays maada xuquuqdaada maada wadaninimadaada maada sharaftaada maada noloshaada maada dhalinyarnimadaada maada isweydii xagee qabatay adna waxa lagugu mashquuliyay ninka qayrkaaga boqorka noqday xitaa kuma fikiraysid inaad boqor sidiisa aan noqoto oo sidoo badan yahay hantida uu leeyahay caruuraha uu dhalay noloshu haysto aad ku noolaato kuma fikiraysid fadhi ku dir maqaaxidana waxa la fadhidaa boqor buur madooba boqorkayga sultaan xasan ayaa sultaankayga sultaan cabdiqaadir sultaan maxamed cabdiqaadir baa sultaankayga sultaan bower sultaan kan madaxweynaha reerkayga maxaa ka galay maxaad ka faa'iideysaa isweydii wajib maxaa adiga xaqaagini intaas hadaad garato nolol nabad caafimaad waxbarasho leyd biyo wadooyin horumar nadaafad ictiraaf caalamkeenu ka mid noqon hadaad intaa garato waajibka adiga ku saar waayahay taasi waa ta kale muhiimka baa idin sheegaya salaadiinta culimada waxa lagu yaqaanay ayuunta wadankay haayeen qayb libaaxle wadankeena ka soo qaateen Soomaalida waxaanu kaga duwanahay iyaga xalin jiray dhibaatada dhacda dabkii baxay iyaga baqtiin jiray laakiin waqtiyadan dambe waxaad moodaa inay salaadiintii ay isbedeleen inaba doonkii isbedelay inay afku dhiigla noqdeen oo haddii aanay laba nin amba laba reer aanay isdilin aanay iyagu shaaxba heleen ayaad moodaa iminka salaadiintii hore waxaa ka mid ahaa allahumma salli calaa maxamed xaaji cabdiwaraabe cabdikariin ilaahay ha caafiyo uu xanuunsanayaa sheekh cali jawhar sheekh albeledka boorama sheekh yuusuf sheekh madar awowga oo jaamac saban allahumma salli calaa maxamed suldaan maxamed suldaankii arabka ee isaguna soo hooyay hubka salaadiintii hore salaadiin qiimo leh bay ahaayeen salaadiinta iyo culimadana wax leenahay
war maanta ubadkiinii badahay ku dhammaadeen war maanta ubadkiinii kaamam caydhay ku jiraan war maanta hablaheennii qurquruxda badnaa sharafta lahaa gacantay nooguma jiraan meel walba way ku dayacan yihiin war maanta dhalinyarteennii waa taa maalintii alla keenaba liibiyay ku silcayaan xabsiyaday ku jiraan badihii bay ku dhammaadeen noloshii bay ka wada dhaceen maxay kuu taraysaa nolosha aad keligaa nooshahay sheekh baad tahay guryaad dhisatay intaasoo dumaraad guursatay maxay kuu taraysaa haddii ilmahaagii inadeerka ehelkaagii qaraabadaadii muwaadinkaagii uu maalin walba dhimanayo maalin walba dhiig kuu tahay maalin walba ceeb kuu tahay maalin walba qaylo kuu tahay maxay kuu taraysaa suldaanow maxay kuu taraysaa suldaanow cumaamad iyo koofiyad intaad halkan saarato aad isku qanciso yaad suldaan u tahay ma waxaad suldaan u tahay inta hargeysa iyo burca iyo awdal iyo berbere iyo maxaan ku dhahay laascaanood iyo ceeriibka abad miyaanad war suldaan u ahayn kumaankumka dhalinyarta ee badda ku dhimanaysa miyaan aakhire adiga lagu weydiinin ilaan adiga xilkaa qaaday miyaanad suldaan u ahayn dadka maalin walba isdilaya miyaanad suldaan u ahayn hooyada goblantay ee ooyeysa ilmaheedii iyo hantideediiba badda ku weyday miyaanad suldaano inta caafimaad darrada u dhimanaysa miyaanad suldaano inta abaaruhu dileen miyaanad suldaano inta gaajadu laysa ma isweydiiseen ayaan darradayna haysatay ka mid tahay bal caqligooda amba madaxweynaano amba siyaasi ha noqdo amba suldaan ha noqdo amba sheekh ha noqdee ninka maanta intuu hargeysa meel qurux badan soo fadhiista wax sheegaya maalin walbana 500 oo qof oo dhalinyari badda ay kaga dhimanayaan muxuu ku hadlayaa yuu wuxuu sheegaya Somaliland 3 qaybood bay u qaybsantay in badaha ku dhamaatay in maxaan ku dhaayay abaarihii gam ka dhigeen dad iyo xoolaba iyo in la tiicaysa gaajo iyo darxumo iyo sixir barar iyo silic saddexdaas u qaybsan marka ninka daragsanow war ninka daragsanow amba suldaan noqo amba sheekh noqo amba siyaasi noqo adiga caruurtaadii dibada ay ku raaxaysanaya Saciid Badmaax baa ku jiraan malaynaya aad iyo aad baan ku salaamaya walaalkaygu qaaliye baa tahay kal iyo laabaan ku leeyahay ugu salaam saxaabteena Sacuudiga waayahay walaalayaal balli suldaanka oo ee dhargayow waa kugu adiga intaasoo guriyaad leedahay intaasoo beer baad leedahay intaasoo baabuura baad leedahay bal hankaaga iyo caqligaaga iyo damiirkaaga ku siiyey guriga jaarkaaga ana dabka lagama shidanayo waa lagu bakhtiyayaa qasabada waxa biyo qasabadaha soo gala miskiinka jaarka haddii uu albaabkaaga soo qaraaca ka furmaysid maaday raxmad maaday naxariist maaday iimaanki maaday isku damqashadii maaday walaaltinimadii maaday ehelnimadii maxaad markaa ku sheegaysaa markaa miyaan la odhan karin waxaad noqoteen qori dablaad la wareegaysaanoo idinkaaba iskugu waaya hello يا رالي هذا ها اوكي ان صلاتين تا شرف بيريغ مدين يا احترام وانا ضد متقانا bulshadu ay dooratay waxaan leeyahay hoosu eega waxa idin hoos yaala hoosu eega waxa idin hoos yaala maanta ma idaan ahaateen kuwii warbaahinta la soo fadhiisan lahaa suldaan hebel baana iyo caaqil hebel ma lafaha iyo dhiiga daadsanba suldaan u tahay dhalinyartii dhamaatay yaad suldaan u tahay dhulkii waa qalalay abaaraad dishooday hay dadkii gaajay u baktiyeen wala iscunaya yaad suldaan u tahay aakhire waa lagu weydiinayaa dib u eeg waxa ka dambeeya haddaad adigu qurux badan too go'shaala iyo gaari qurux badan oo fiidiya iyo guriyo iyo intaasoo dumara
iyo carruurtaada ay nool yihiin eeg hoostaada ee guriga jaarkaagaaga waa laga ooyayaa ubadkii waalidkaasi dhaleen badday ku daateen eeg guriga jaarkaaga dab lama shidan miyaad aragteen nin suldaano intuu soo kacay 40 guriyoo jaarkiisa xitaa hadduu maro suldaannimadiisu waa mutafaq waxba laga soo celin maayo miyaad aragteen nin suldaano intuu soo kacay amba caaqila amba mataqaana guri jaarkiisa booqanayo le maxaad karsateen waxaan sulaadiinta waxaan leeyahay iyo caaqilada iyo nabadoonada iyo culimada war umadiina u tudha war islaaxa iyo wanaaga aashaxaxi kal iyo laabaan ku leeyahay soo dhawo walaalqaali war u tudha waxa la idhi ha laga shaqeeyo isku soo jiidka ummadan walaalaha ah kow ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeedba waxa deeqa waa nabadda wax loo dhigaa ma jiro nabadii baa idin dhibaysa miyaa oo kolba reer baad ayaad dabka ka shidaysaa ayaan daradayna haysata ha laga tanaasulaan leeyahay ha laga waantoobo taas salaadiintaan leeyahay ma nabci sharaf bayga mudayn madaxay saareen laakiin waajibkooda ha gartaano hoos ha u eegaan meesha ay ka dhaxadlayaan dhibaatada ka jirta taasi waa taa dadka qurba joogta ah ee beelaha ku abtirsada ee guruubyada samaystay ee u sacabtumaya laba reer oo walaala ah sida isku dili lahaayeen ee dhaqaalaha ku ururinaya in dhiig daato kuwaana waxaan leeyahay war ilaahina ka baqa $10 haddaad ku bixiso nin in adeerkaa iyo inuu nin in adeerkaa u dilo yawmal qiyaamaha waa lagu soo taagayaa wallahi kow waa dadka qurba joogta ay waxba ogeyn ceelaf weyn dadka ku dhimanaya Maraykanna ma joogaan Yurubna ma joogaan iyaga walaala ah waa isku ardaa waa inan yaabtigi waa ilmaabti waa ilmaadeer waa ehel waa tol waa wada dhiig way wada dhasheen damiirkaaga group yar baad samaysanaysaa kuwii xumaaya habar yoonis Sacad Yoonis ayaaba iswaalwaalaya habar jeclay haddaad iska qabo weydaan idinkoo intaa ka Itaaliyar bay sidaa yeelay war habar jeclaya habar yoonis maxay kala yihiin maxaad u kala qaadaysaa Sacad Yoonis iyo biciida maxay kala yihiin habar lamaan baa la isku yidhaa ilaahay baa isbado waa walaal waa dad wada dhashay weyn iyagaa iskaga kaa xaq mudan labada guriba waa laga ooyayaa maanta guriga Sacad Yoonis iyo guriga biciido waa inan yaabtigi ayaad isku diraysaa adoo qurbaha joogo cayd qaadanaya ayaa wixii yaraad caydda ka qaadanaysay intaad group samaysatay si hub loogu iibiyo ayaad lacag u ururinaysaa 500,000 war inta dhiiga waa dadka qurba joogta baan la hadlaya ee media ka soo hadlaya ee gruubyada samaystay ee walaalaha u kala dab qaadaya kuwa waxaan leeyahay war inta dad walaalo oo wada dhashay aad isku diraysaa horta yaa inta dad walaalo oo wada dhashay isku diraysaa war dadka danyarta dadka magnuunka ku jira dadka laxaad kala dadka matana agoonta dadka darbi jiifka ah war kuwaasaad ilaahay ugu dhawaanaysaan oo aakhirana aad ku liibaanaysaan ilaahay inuu xariisayaa maalinta biciido iyo Sacad Yoonis istilaan $1,000 baad bixisaan $1,000 ayaad bixisaan si laba inan iyo abtigi ay isku dilaan ay isku dooxaan maalinta nin miskiina amba agoona amba laxaadla amba dhibirka ka xanuunsan laydina walaalu soo qaadhaamana $10 baad dirka ku bixinaysaan ilaahay baa sida aad colaada iyo munaafaqada iyo isku dirka aad ugu shaqaysaan baan idin sheegay walaalayaal waa ayaan daro in maanta dad wada dhashay ilaahay isbaday loo kala dab qaado anigu waxaan ku faanayaa libinta aan ku faanayo waa libinta habar Yoonis libinta aan ku faanayo waa libinta habar jeclo libinta aan ku faanayo waa libinta ciida kale waa libinta Ayuub waa libinta Taljecle waa libinta Sambuur waa libinta Cimraan waa libinta habar awal waa libinta reer Sheekh Saxaaq way aynu ka waantowno
dhibaatada koowan toogno ummadana aynu isku soo jiidno taasaan ka leeyahay inamadan yaryar ee facebooka ka hadlaya inamada yaryar facebooka ka hadlaya war heedhe nin yaroo liibaan laydhaa ku kaloo isagana maxay kala laydhaa kan Mustafa Martiin laydhaa dee waa ninkii waalaa doqonka ahaayee idhi hooyaday aabbahay ha furo unbay ka mid tahay war markaad liibaanow amba Mustafa Martiinow amba waxa reerka kala qaadayo amba guud ahaanba beelaha imika loo kala dab qaadayo war heedhe war markaad habar jeclacaydo ilaa habar jeclo waa hooyada waa walaasha waa abtiga waa in abtiga waa ehelkaagi waa kalkaagi war gacalkaagi iyo ehelkaagi markaad caydo berri toola ninka qayrkaaya ee shishe maxaad ugu faani doontaa habar yoonis baa haw tusaalaan ku siinaya bal habar yoonis baa haw habar yoonis haddaad tahay ood ninka habar jeclacaydo amba inanta habar jeclacaydo ileen waa ooridaadii waa walaasha waa in abtida waa in adeerta waa gacalkaagi waa xididkaagi waa ehelkaagi haddaad caydo maxaad ugu faani doontaa ninka qayrkaa iyo berri ilaan calooshadii iyo xiniyahaagii unbaad bannaanka soo dhigtay cawradaadii unbaad bannaanka soo dhigtay maxaad ugu faani haddaad habar yoonis tahay haddaad habar jeclo tahay maxaad ugu faani doontaa cayda habar yoonis waa caydaadii ninka qayrkaaya ee shisheeye maxaad ugu faani doontaa haddaad sacad muuse tahay ambaad habar awal tahay maxaad ugu faani haddaad habar yoonis iyo habar jeclo caydo ilaan adaa iscaayay bal maxaad ugu faani doontaa inamadan yaryar waxaan leeyahay war haddaad wax toosinaysaan ood wax saxaysaan qaabkaa waxba looma saxo halo cabdiraxmaan yuusufa cabdiraxmaan yuusuf waayo hay life baa ku jira aan ka baxa marka waxaan idiin sheegayaa walaalayaal durriyaddu waa mid kuwa meesha tamaya kala qaadaya habar yoonis caayaya habar awal caayaya habar jeclo caayaya caayaya garxajis caayay inaga mid maaha reer walba garacyaa ku jira shaydaan oon la garanayn meel ay ka soo jeedaan abiyaysir oo laynagu soo dhex tuuray garaca astaamaha lagu garto waxa ka mid ah tolkiibuu caaya garaca astaamaha lagu garto waxa ka mid ah hooyadiibuu caaya garaca astaamaha lagu garto waxa ka mid ah walaashiibuu caaya garaca astaamaha lagu garto waxa ka mid ah ayaydiibuu caaya abtigiibuu caaya in adeerkiibuu caaya diintiisuu caaya ilaahaybuu caaya dhaqan ma leh waa garac ninka maanta kala qaadaya durriyadda kala qaadaya habar yoonis caaya habar awal caaya reer sheekh saxaaq caaya amba beelaha somaliland ba caaya waa garac falaysa midna inaga mid maaha kaas waa xaqiiqtaasi car historigiisa dib u baan nin abtigii walaalkii walaashii in adeertii ehelkiisa tolkii qaraabadiisa caayaya haddaad aragtoo kala saaraya oo qolana ka dhigaya geesiyaal qolana ka dhigaya doqmo kaa bal dib u baadho bal soo baadho oo dhiigga ha laga qaado waa garac ilma xalaal maaha u fiirsada hadda waa garac ilma xalaal maaha waayo riximka ilaahay baa idhi subxaanahu wa tacaalaa riximka xidhiidhiya marka hore waxaa lagu waajib yeelay naftaada mar labaadka waalidkaaga hooyada aabbaha mar saddexaadka horta naftaada markaad hagaajiso dhaqankeeda diinteeda dhaqaalahaaga aad qof isku filan noqoto markaad qof isku filan noqoto maxaa lagu waajib yeelay kow waxaa lagu waajib yeelay kaaga hooyada aabbaha walaalaha haddaad xaas leedahay laba tollaad tahay gacalkaaga maxaa ku sii xiga jaarkaaga maxaa ku sii xiga
islaamku wixii markaa idin waajibiyey ninka markaa dadkii uu ka soo jeediyay riximkii uu ka dhashay hablahoodii ilmaadeeradii tolki maalin walba caaya kaadeel maxalaal ma ha ku mashquulin taasaa ka leeyahay ta kale muhiimka baa idin sheegaya dabka iga dhacay qodob kale muhiiman ku daraya qodobka kale muhiimkan ku daraya waxa weeye xukuumad kasta oo Soomaaliland waxa loo sameeyaa shacabkaana lagu mashquuliyaa qabiilada la kala qaybiyaa si aan xukuumaddaasi u dhaqaaqin xukuumadihii Soomaaliland soo maray oo dhan xukuumado taariikhiye bay ahaayeen Soomaaliland waa kuwa halkaas soo gaarsiiyay iyadoo la ictiraafsanayn Cabdiraxmaan Tuur ka soo maxamed xaaji ibraan cigaal daahir riyaale siiraanyo dhammaantoodba way ku amaanan yihiin amniga iyo horumarka iyo quruxda ay soo gaarsiiyeen xukuumad bay bedelaysaa siyaasaduna waa sunne duca qabe waa lagu bedelayaa dhaxal u heli maysid laakiin xaqiiqdan idin sheegaya maanta xukuumad kasta oo timaada in baa loo yeeli jiro reer bay noqon jirtay Tuur habar Yoonis baahay Cabdiraxmaan Tuur ilaahay ha u naxariistii janno wasaca ka waraabi cigaal ciise muuse siiraayo habar jecleh tan maanta waa Sacad Muuse hadda kumad wala timaada baad reer siiso adigiyo ku jira oo cunaya oo kamida oo wasaaradii ka shaqeynaya wasiiradii oo ciidamadii oo dhaqaalaha ugu badan qaadanaya halkana aad ka tiraahdo waa reer halkana aad ka wado oo du nixi weydo war dalka yaad ku halaynaysa dalkaaga yaad ku halaynaysa soo hooyada dhiman mayso gaajo baqtiimayso walaalka ninka hadima ka taliyow adiga u halis wuu kula dhuuqaya wuu kugula jira waa wasiir waa agaasime waa taliye ciidan waa gaashaan leh waa maxkamadii waa haddana had wuxuu ku leeyahay waa reero eeg hadda xagga reerkana oo dadkii baa lagu mashquulinayaa isnaalkan uu ka cunaya ka wada war miyaad ka maqan tahay reerkan miyaanad kula jirin miyaanad ka mid ahayn war inta waxa iska deysaan haddaba waxaan idin sheegaya xukuumad walba in baa loo sameeyaa si aanay hore ugu dhaqaaqin war xukuumadan way soconaysaa waana xukuumadda Soomaaliland waxda ka bedelaysa ninkan waa nin askariya way ninka askarigiina siyaasiga la mid ma muxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay koow horta uu ka muwaadinsayo ninka askarigi wuu dhintaa dalkiisa naftiisa iyo maalkiisa uu huraa isagoo gaajo dhexda iska xidhan ayuu ninka askarigi qarankiisa u dhintaa uu ka jecel yahay ninka askarigi ninka siyaasiga ah taa way ku kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin xogogaalnimada ninka askarigi ma qab weyna beenaalana ma khiyaanoolana maaha hadduu waxba dhisi kari waayo iska tagay haddii kalena waxbuu dhisaya muxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay jeclada wuxuu kaga duwan yahay wax qabad go'aan adkida amar buu ninka askariga ninkan waa nin askariya isagoo iska socdo lugeynayo tig yar wato wasaaradaha tagaayu dhex fadhiistaa maantaba dawlad ka duwan dawladii hore dhalatay maxay ku dhalatay kala dambeyn iyo waxa la yeeshay iyo nidaam baa la yeeshay wixii miyaad aragtay wasiiradii warbaahinta ka hadlayay shirarkii jaraa'ida ciidda ka badnaa meeyeen xafladii ciidda ka badnaa hoteeladii la kireenayay meeyeen kala dambeyn iyo nidaam bay yeelatay waa qodobka koobaad qodobka labaad ee muhiimka ah een ku sheegayo wasaaradihii waa la wada yareeyay shaqaalihii waa la tayeeyay madaxtooyada waxa laga soo saaray 250 shaqaale ah oo magac qaadan jiray madaxtooyada 2500 oo askari ba madaxtooyada laga kaxeeyay oo iyaguna mushaharun qaadan jiray waa 2500 oo askari waxa lagu soo roobay 150 askari shaqaalihii 109 baa laga dareeriyay aan la garanay waxa qabtaan wasaarad kasta sidaas la yeelay nidaam iyo kala dambeyn bay yeelatay muddo yar bay jirtaa maanta tukarraq waadiga qabsaday tukarraq waad haysataa xuduudkii 7 kiiloomitir buu ku jiraa intaana waa la dhameystiraya haye sixir bararkii hoos buu dhacay go'aan baana laga soo saarayaa inaan saadiyo iib dahab aan lagu shubin $200 wax ka yar 10 cisho kadib talabaad
bangigii qarankaa shaqaynaya bangi kala shaqayn maayo bangiyo caalamiyana waa la furaya markii hore dahabshiil iyo tilisan baa ummadda dhiigga ka shaqay ta saddexaad amaawiirta dawladdu way fulaysaa war sidee baad rabtaa markaa war waddankeenu wuu socdo wuu horumaray اعترافكeenuna gacanteenu ku jiraa dhalinyarta jaamacadaha iyo dugsi sare ka baxday kuliyad militariya loo diraya marka loo dirana bileyskan waa la bedeli doonaa insha Allah bedelaya tababarba iyagana loo diraya waa la tayeynaya ardayda jaamacadaha iyo iskuuladana waxa laga dhigi doonaa kuwii wadankan ee bedeli lahaa maxaad rabtaa maxaad doonaysaa xukuumad walba ma reer baad ku sheegi war mid baan idin sheegaya war maanta cadowgeenu waa badan yahay war maanta habar yoonis iyo ciida galow garxajisow habar jeclow habar awalow markaad habar yoonis iska eegto ciida gale iska eegto habar jeclo iska eegto isaa kala qaybiso marka iyaga aad la dagaalanto adiga ma lagu daynayaa ma badbaadaysa awood waxaad ku leedahay karti ku leedahay xiniyo ku leedahay inanka habar yoonis baad awood ku leedahay awood waxaad ku leedahay inanka ciida galeed awood ku leedahay awood waxaad ku leedahay inanka habar awalbaad ku leedahay awood waxaad ku leedahay inanka habar jeclaad ku leedahay inanka ayuubaad ku leedahay inanka tol jeclaad ku leedahay inanka waxaad ku leedahay markay durriyada tahay weey waa markay durriyada tahay weey waa markay durriyada tahay in adeerka intan ka cararo on caayoon ceebeeyo inanka habar yoonis amba ciida gale nin kaloo shisheeye ah miyuu hadhow ma ii turaya saddexdii dibi baa noqonaya dibigii caddaa iyo dibigii madoobaa iyo dibigii casaa labada dibi marka la cunana anaa la cuni doona horta waa inaad garataa libinta reer Sheekh Isxaaq inaanay mid tahay oonay kala ahayn ceebta reer Sheekh Isxaaq waa mid cadowga reer Sheekh Isxaaq waa mid cadowga reer Sheekh Isxaaq waa mid ceebta reer Sheekh Isxaaqna waa mid libinta reer Sheekh Isxaaq waa mid sharafta reer Sheekh Isxaaq waa mid markaad adigu sharaf yeelateed mid noqoteed isku duubnaataan wax isku ogolaataan ayaa beelaha kale ee walaalaheeniina ku ixtiraamaya ka cabsanaya wax kugu darsanaya laakiin markaad adiga 24 saacadood halka naacda la fadhido inta lagu soo raaco hadaad habar yoonista inta ninka shisheeye cadowga ku soo raaco markuu walaalka kugu dilo walaalka ayuu adigana ku oran doonaa maxaad haysaa waan ku gumaysanaya hadda cahayga hoos qaada walaalayaal waxaan idin sheegayaa aqliga saliimkii ha shaqeeyo fikirkeenu yaanu qaldanaan xalay baan la soo galay Ilyas Gasburco live-ka codkayga iga googo'ayay Mustafa Martiin baan ka hadlay hadalka ka yara qalloocsamay wuxuu yiri habar yoonis tolkeeni nagada habar yoonis ma soo qaadin habar yoonis shakhsi ma habar yoonis waa reerka ugu ballaaran reer amba Soomaali markay noqoto reerka ugu badan weey garxajisaan idhaahday anigu jiran ooga ahaana nin habar awala waligay ma raacin dadkan inta badan la socda waa habar yoonis weey waa ciida galow weey daanta aan Somaliland ka gala waa daanta xaggan weeya ma garatay arabka iyo ciida galaha iyo habar yoonistan iskala socda de maxay yihiin maxaan oranayaa iskala socda maxay yihiin maxay kala simeeyay maxay anika habar awal iyo ninka habar yoonis maxay kala simeeyay miyaan labada gacmood ahayn miyaan sharaftaydi wadahayn miyaan dhiigayga miyaan dhacaankayga wadahayn maxay kala simeeyay maxaa laba daamood bakeen aqli xumadayna haysatay kamid tahay aqli xumadayna haysataa ayay kamid tahay beelaha Somaliland ee kala samaroon inta warsangali ciise iyaguna waa inaan yaabtigiyo dad walaalayeen wadana marka sharaftu waxay ku jirtaa markaad naftaada waxa la jeceshaad walaalka la jeclaato waaraynu iska dayno horta waa idin sheego ka habar yoonis wax ka sheegaya Sacad Muuse sheeganaya Sacad Muuse kamid maahay waa garac weey oo garaca lagu yaqaanaa inuu naadeerkii iyo walaalkii iyo ehelkiisa deecaayo garaca lagu yaqaan
كهبر يونس شاغن اي سعد موسى ام هبر جعلو wax ka sheegayaan habar yoonis ma aadigu habar yoonis ku shaambadayn inta habar yoonis waa bad waa ciida in wanaagsan in xunba weelaad kaasina waa garac raba inuu dadka walaalaha wada dhashay isku qoyska ah isku dhaxtiro sharafta habar yoonis waa sharaftayda waan jecelahay adduunka iyagaan ugu jecelahay ciida galay habar yoonis ilaahay baa iskaaye baday aniga waa reeyayday sinaba kuma kala tagno marka walaalayaal inaga daaya maantoolee nin dhaka dhukuran oo garac shaydaan oo asal ahayn oo inantooda hoostoodii iyo reerkoodii iyo tolkii ka sheekeynaya ayaad ku mashquulaysaa ha ku mashquulina hay laqwiga uu ku hadlayay ransada hadalku leeyahay marka waxaan u sheegayaa Ilyas walaalkay sheegan wax la yiraahdo ma jirto sheegantan waxa la rabaa in adiga lagu mashquuliyo oo xukuumadii laga horkeeno oo reer laga dhigo hay sheeganta wax la yiraahdo ma jirto reer sheekh saxaq waa mid isbaday waa dhiig iyo dheecaan waa isku dhaqan waa isku dhaqaale waa ehel waa dad wada dhashay waa walaalo ma fahantay marka yaa ku saad yaa la idinku mashquulin inta Somaliland way soconaysaa sida ku soo istaagi meesho marxalada tan ka qaar bay soo martay waxay soo martay iyadoo diyaarado ay rusheynayaan Hargeysa iyo Burco iyo Berbera oo loo aabayeelayn ilmo yar oday ayay ku indhala ku waalan ku xanuunsanaya aan loo aabayeelayn oo horashiinaad moodo sida loo rusheynayay soo martay waa taa ka nool maanta alxamdulillah rabbil caalamiin dad baa noolaan cid ismeelahay dunya la dhaqan cid ismeena lahayn maantana waa taa imaaraadkiiba kamid tahay Hargeysa caasimadda kamid tahay iyo Burco iyo nimcada lagu nooliyo waad yaabtaa cuntadii baa la qubay waxa la soo maray iyadoo Ingiriisku ina kala qaybiyay oo inu dhibaataysan waxa la soo maray iyadoo qaxoonti lagu jiro oo injirta iyo duqaanka iyo silcuna cunayo marxaladaanu soo marnay marxalada ka xumi ma jirin alxamdulillah baynu ku jirnaa in wax ka baranno nabadana aynu ilaashano walaalnimada iyo wada dhalashada iyo dhiigana aynu ilaalino sharafta iyo wanaagana aynu dhowrano noloshayda weligay public lama soo fadhiisan inta live ka hadlay reer sheekh saxaaqayna aflagaadeeyo amba aan wax ka sheego oo ina reerkaasi waa nooc alla ilaahay xusbiga wadani wax waan ka yara sheegay dadna marar bay u rogeen reernimo laakiin wali reer habar yoonis amba ciida kale amba reer habar jecel amba reer kale ayaa sidaas afkayga laguma maqal waa ceeb weey maxaan ugu faana qadaad weyn amba reer qurun qadaad marka aan reerkaygii kala guro maxaan ugu faanaa iyaga maxaan iskaga celiyaa bal maxaan iskaga celiyaa ilaahay baan kugu dhaar waxaan kugu caayo bari ugu caayaya taayid faantaa wanaagsan walaalayaal waa idinka mahad celinaya sida qiimaha leh ee aad ma taqaanaa waayahay aad ii dhageysanayseen ii daawanayseen اللهم صل على محمد dalkii wuu dhaqaaqay wax badan baa isbedelay dawladnimada ayaa runtii shacabkeenu dawladnimada ma yaqaan ilaahay dawladnimada hal baro xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa sharafta leh waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda sharafta leh kow in ay amaawirteeda fuliso oo suldaan iyo sheekh iyo caaqil midnaba aan uga daba fadhiisan ilaa shacab baa doortay oo dakhliya la geliyay maanta dalkan iyo dadkan iyaga ka mas'uulay ay dalka ka saartaa reernimada waad talabaad amaawirteeda ha fuliso ta saddexaad amniga ha ilaaliso waajib ka saaran intaasaan xukuumadda cusub faraynaa inay amaawirteeda fuliso oo cidnaba go'aankeeda aan uga daba fadhiisan cidna aan la bariyin reerahan qoriga isku haystana la tarbiyadeeyo nin qori sito hadii la arkana aakhir loo tiro
muxuu soo kordhinayaa nin naadeerkii ku dilayaa gacan biraha ku qabato taasaan ka leeyahay waxa kaloo idin sheegaya walaalayaal anigu ma ihi kulmiye mana ihi reer anigu Somaliland darbaanahay markii aan ka baxay live-ka ayuu Ilyas Sagas Burceyd janan ooga waa kulmiye war anigu kulmiye ma ihi reerna ma ihi sheegaanna ma ihi weligeyna reerkaan ahay xitaa ma kala aqaano sulda caaqilkayga ma aqaano ninka Hargeysa joogo ay garanayee wallahi baan xitaa reerkaan ahay aanan aqoon mana dhex galo habar awal ma dhex galo reerkaan ahay ma dhex galo nin waxaan iska ahay bulshadiisa iskaga dhex jiro oo maalintii alla keenaba kaybiya dadnimo isku fahmaa soo dadku ima qaataan yeena qabiilaystahay ninka Hargeysa igu yaqaan baa yaqaana wali nin reerkayga ah inta raacay waxba lama cunin daantana ku noolahay labada habar yoonis baaba inta badan aan la socdo wallahi billahi ta'ala looyarkii dooday in habar yoonis abo looyarkii anigii dooday in habar yoonis laba looyar baa ii dooday adeerka iyo looyar kale kii kale ii dooday in habar yoonis abo taas waa taa dadkan inta badan israacnaana waa habar yoonis iyo habar awalna waxba ima kalaha kulmiyana meehi war haddaan kulmiyahay ama Muuse Biixi adeerkay yahay xabsi baa video waliba aan duubay oo gabadhu ay cadaysay inaanay waxay iga qaadaysaanay sharci ahayn clip yar yaa ano aroos laygu soo xiray oo arooskayga farxadeedii lagu baabiyay oo habeenaya maana silsilad iyo katinad laygu jiidaye Muuse muxuu iga sii deen waayay hadduu adeerkay yahay xarigii waan iibsaday xarigii anaa iibsaday 2 bilood baan u xidhnaa haddii maanta aan doodo oon xuquuqul insaanka u doodo oo aan adduunka u soo bandhigo dad badan baa ku xidhmaya Somaliland baa ku ceeboobaysa dulmigii xaq darrada lay geystay haddana anigu candhuufteedii dib baan u liqay muxuu Muuse waa madaxweyne oo waa nin adeer igu dhaw uu soo deyn waay muxuu iga bixin waayay bal xarigun muxuu iga bixin waayay qaabkaad u fikiraysaan ayaa adiga ka saxaya waan xidhnaa aroos baan ahaa waan u baahnaa in la sii daayo waayahay dabka iga yara dhacay waan ka bixi doonaa walaalayaal waxaan idin sheegayaa waan xidhnaa gargaar baan u baahnaa aroos baan ahaa farxad baan ku jiray Hargeysadii aan ku dhashay baa waxa laygu sameeyay askartii aan jeclaaba ay jiijiidaysay dil ma geysan kufsi ma geysan dhagar ma gelin lacag ilaa $8,000 iga baabaaday farxadeedii nolosheedii bay saameysay Muuse Biixi hadduu adeerkay yahay waa la doortay muxuu soo deyn waayay muxuu xaqayga ii siin waayay bal aqliga yare gaabanaad ku fikiraysaan ku sheeyaa walaalayaal waxa weeyi anigu nin reer ma ihi talaygu sameeyay haddii aan raaci lahaana Somaliland waan ka xanaaqi lahaa laakiin anigu muwaadin baana waan ka aragti dheeray waxyaabaha halgan baan wadankan u soo gonlay halgankiina waa socdaa abtigay naftiisu u huray adeerka Yuusuf Dalal lugtiisana u go'day mujaahid adeerka Yuusuf Dalal Abdi waa nin mujaahid u jooga imika lugtana u go'day waa adeerkay ruma abtigay wuu dhintay de markay u dhimanayeen uu go'aysay dhaqaalahoodii naf iyo maal ku baxan kuma xisaabtamayn wax faa'iid magacna kuma xisaabtamayn dalkooda u halgamayeen aniguna waxba kagama duwani ay hadday tahay xarig hadday tahay dib hadday tahay waan ugu samrayaa yoom min al-ayaamna waan ka bixi doonaa dhibaatada waxana way isbedeli doonaa baraada xigi doona maantaba wanaga xorriyad baan ku noolahay caasimadayda Hargeysa xorriyad baan ku joogaa ma sha Allah tabaarakallah waaniga ku artaaxaya hotel bacdan ka imid iskaga soo nafisay nabad iyo caano gaarigayga baan iska dhax wataa farxad baan ku noolahay qabiil ka bixi maayo dawlada kale ka bixi maayo gumaysi kama baqayo
baraarihii iyo barwaaqadii iyo nimcadii ay abtiyaashan inoo qabteen waynagaa ku naaloonayna anna nin intaa ka aragti dheer baana aniguna nin intaa ka aragti dheer ayaanahay waa reerimo deeqaan habar awal iguma filna sacad muusaad sheegaysaa reerkaan ahayna hadalkeeda badda war anigu nin qaran baana Somaliland bay deeqda oo mida oo cadaalad iyo sinaan hesha oo beelaha Somaliland u sinaan cadaaladda caafimaadka warshada leydhka biyaha nabadda nolosha barwaaqada baraaraha ay u sinmaan ummadda reer Somaliland haddaan xitaa gaajoodo ku dhibaatoodo oo ninka walaalkay nolol iyo nabad helo aniga guul bayita waad faantaan u malaynaya marka aniga haygula soo meeraysan sheegaan hayguna la soo meeraysanina reerka sheegaysaan weligay reerkaygu meel u joogay iyo meel u degay wallahi baana kala aqoon ma raaco alxamdulillah weligayna kuma fikirin reer hebel ayaa tari doona weligay kuma firin alxamdulillah maantana Somaliland oo dhan baa jecel beelaha Somaliland samaroon hadday tahay dhulbahanta hadday tahay warsangele hadday tahay ciise hadday tahay saaq hadday tahay beelaha gabooye hadday tahay fiqishinni hadday tahay gurgura hadday tahay sheekhaal hadday tahay dhammaan beelaha Somaliland degoo dhan aniga waa isku kaymid waxaanu ka midaysannahay aragtida walaaltinimada dabeecadda dadnimadu intay iskaga raacsan weeye marka kunyamayhi ololihii iyo socdaan aroosiska ahaa waanu ololayn lahaa waan difaaci lahaa ma garatay wax faa'iido ah kuma qabo weli nin madaxoo ii yeedhay oo idhi warjaran oogay waa lagu xidho khasaara ku soo gaadho arooskaagii baa laga baabiyay bal intaa khasaaraha dhibaatadu ka soo gaadhay bal intaa bal wixii yaraad ku qabsanaysa ma jiro xaqna waanu lahaa xadhigaygu xaq darruuha cadaalad darruuha dulmi buuha muwaadin baanu leeyahay inaan doodo inaan qirto inaan waajib haddana kugu dhacday oo kaa dhacday in adeerkaabaa ku xidhay in adeerkaabaana ku soo daayay in adeerkaabaa ku xidhay in adeerkaabaana ku soo daayay maxaad odee markaa labada ninka shisheeya waad kala calaf qaadaysaan waad ka cad goosanaysaa kan maxaad odhan ma meelahaasunbaa ka qaylqayliyaa ka cabatimaa xadhiggana rag baa loo sameeyey xadhigguna waa sharaf iyo cisi xadhiggu waa digniin ambiyadii baa la xidhay salawaatullaahi wasalaamu calayh nebi maxamed baa la xidhay calayhi salaatu wasalaam nebi muusaa la xidhay nebi yuusuf baa la xidhay calayhi salaam xadhiggu waa sharaf madaxdaa la xidhi jiray cigaal baa la xidho 7 sano xidhnaa waayo aragnimo iyo khibrad weeya wax walibana waa qoraal markaa walaalayaal anigu nin qaran baanay Somaliland baa deeqda Somaliland ma ku dhimanaya Somaliland baan u dhimanay Somaliland baan u nool marka waxaan idin sheegayaa haygu mashquulina sheegantan waxba si buunbuunina sheegan inama yar oo aan xalaal ugu dhalin oo aan walaashood iyo inaadeertood iyo ehelkooda midna aan ixtiraamayn ayaa ka sheekeeya warbal ilaahay baan kugu dhaarsheeyay su'aal baan ku weydiinayaa war markaad xukuumadii hore tan ka horeysay aad lahayd waa habar jeclo habar jeclo saarnayd tii cigaal aad lahayd waa habar awal amba waa ciise muuse oo berberay degaan ciise muuse berberay degaan catiir bay ku seexdaan caafimaad ma haystaan qabooji ma haystaan eesi ma haystaan wadada berberiya Hargeysa u dhacaysa waa lagu dhamaaday dakhliga berbere ka soo baxo kaliya ku filnaa waa gob wayse soo dhaafiyaan Somaliland baa berbere ku dhisan cigaal ninkii yidhi buu ahaa reer berberow gaajo u bakhtiya intan madaxweyne ahay ninka ciise muuse madaxtooyada soo gala ay khadku ka saari jiraan buu xidhi jiray
intii la odhan lahaa in adeerkiiba wax siinay haddana waa ciise mushuun baad odhan jirteen waa baabaca madoobuun baad odhan jirteen riyaalaad odhan jirteen raafxadduu qabaa saylac iyo lowyo caddi iyo lughaye iyo balaayiyo baas buu iibiyey cabdiraxmaan tuur baad lahaydeen tabu ku seexdo ma waayo nin tuurli tab u seexdo ma waayo dowlad tuurli toosi maysee maxaad odhan jirteen tanaad tidhaahdeen waa jeegaan iyo waa dhugure iyo balaayo war haddii inoo timaada ee wanaagsan baad u magac samaysaan ood caqabad ku noqotaan oo aad ku mashquushaan ood wixii reernimo u matashaan maxaad rabtaan marka maxaad rabtaan yaa idin xukumaya waxaan u malaynayaa ninkii idin xukumi lahaa inuu yoomal qiyaamaha imanayo waa juuja maajuug malaha waxaad u baahantihin siyaad barraad u baahantihin iyo morgan iyo in marna sidaa laydin jiiro marna sidaa laydin jiiro injirtii iyo qaxoontigii baad rabtaan adnaantaad xojin weydaan reer somalilandow baryadii way dhaaftay ma reerunbaa la baryi reerintaynu taagna waynagaa dad iyo xoolaba dhammaanay eaynu wada caydhownay ee maanta guri keliya oo biyo laga soo darsanaya aanu jirin ee miyiyo magaalo la sinmay reer suldaan caaqil boqor sheekh kan tahays walaalayaal ninka intuu public soo fadhiisto raba dhulbahante iyo samaroon iyo ciise iyo saaq inuu iska hor keeno iska dhigaya inuu dhulbahante u doonayo